maanta waxaanu ku soo dhaweynaynaa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland madax xisbiga wadani ka tirsan oo ka yimid wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota nimankaas oo ah runtii niman xisbiga aad iyo aad ugu qaali ah isla markaana lafdhabarta xisbiga gobolkaas Minnesota ama Mareykanba ah haddii aan idin sheego magacyadooda waxa ugu horeeya gudoomiyaha xisbiga Minnesota Abdulrahman Daahir Aadan Professor Mohamed Allabari iyo Ahmed Nuur Qodax oo runtii xubnaha firfircoon ee lafdhabarta u ah Mareykan ama gaar ahaan gobolka Minnesota sidaas darteed waxaa noo sharaf ah anaga xisbi ahaan in wafdiga qiimaha leh aan ku soo dhaweyno xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliland ama caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo joogno imika xarunta xisbiga wadani inaan la kulmo asxaabtii aanu halkan ugu nimidnay oo anagu aan u soconno inaan gurmad u nahay maanta Soomaaliland iyo ka badbaadino hawlahan adag ee imka la soo xiriiray marka waxa aad noo farxad geliyay dadka halkan jooga inay naga horeeyaan oo aad naga horeeyaan wax ka barano oo aanu ka faa'iideysano haddana Soomaalidu waxay tiraahdaa tala waa dhowrta oo waa in la isku dardaro wadana wixii aanu kulli noqon ama karti aanu xaga kala aan isku darno anagu dalka waxaan ka tagnay September waqti badan maanan maqnayn intii aanu maqnayn isbedel badan baa dhacay waxa la soo saaray barnaamijka siyaasadda xisbiga la soo saaray isbedel badan baa ku dhacay axsaabtii kale ee xisbiga loo loolamaysay waxyaalahaas oo dhan waxay u baahdeen inaanu ka tala bixino talaan ugu soo noqonay markaa gudaha waxa weeyaan runtii waxa arinta ugu weyn halkan u nimidnay waa arin runtii gaar u ah xisbiga wadani oo aan doonayno waxaan had iyo jeer isweydiinaa markaan halkaa joogno dibadda markaan joogno waxaanu qaban karnaa wuu yar yahay marka mar walba culays wuxuu naga saaran yahay anagoo arkayna xaaladda guud ee maanta wadankeenu ku jiro iyo culayska guud ee dhammaanba saaran bulshada Soomaaliland ee ah sidii wadanka loo badbaadin lahaa ama sidii loo sameyn lahaa nolol ama dimuqraadiyad waarta oo ka bilaabanta wadanka Soomaaliland isbedel weyn oo runtii lagama maarmaan ah taasi darteed baa nagu kaliftay inaanu isweydiino nidhaahno war waxtarkiinu marka dibadda joogtaan de waxaad qaban kartaan wuu yar yahay waxa laga maarmaanay dhulkii tagtaan oo waxa dadkiina daalan ee xubnaha xisbiga wadani iyo mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee meel kasta ay joogaan wadanka Soomaaliland habeen iyo maalinba heeganka oo bal inaan isku dayno sidii aan anaguna u garab gali lahayn ee aan u caawin lahayn waxa jiray bariyahan dambe oo dhan in xisbiga kulmiye ee taageerayaasha xisbigaasiba ay habaar la daba taagnaayeen xisbiga wadani khilaaf baa ka jira waxba is haysta gudoomiyaha iyo afhayeenka is haysta xogayaa warfaafinta booba iyo afhayeenku buubaya is haysta waxaan u sheegnaa horta propagandada daciifka ah ee wax allaale wax ka jira habeerata aan jirin ma noqon doono anagu dad ay saameyn ku yeelato marka hore xisbi ahaan isla markaana waqti badan iskaga lumin mayno arrimaha beenintooda iyo ka hadalkooda waxa jira laga hadlaa waxaan jirin in laga hadlo lagu celceliyo in badan oo laga jawaaba uma baahna iyana waa si jecel yihiin had iyo jeer ala jawaab siino rajada kaliya ee ummadan qabta marka ay tahay xisbiga wadani dacaayadaha raacayinkaas ah iyo tartanka qaylo sharciga ah ee ku salaysan waxyaabaha dadka waaweyn aqliga ka xishoonayaan ee ficilada ah ay ku kacayaan kulmiye ama haraaga kulmiye waxa la ka waantooba miidaan waasa si xor ah oo xalaal ah nolol tartamo leenahay